mudana madaxweyne sidii hadda gabadhii ugu dambeysay oo gabiyeysay ee Suhayl ay sheegtay shanta qodob ay sheegtay weeyaan shantaanu ku soo koobnay baaqayaga qodobka koowaad waxa la yiraahdaa arrimaha siyaasadda xilligii la asaasay Puntland oo ay ka koobnayd 5 gobol iyo deegaanka Buuhoodle 1998 iyo 2005 oo ahayd xilligii la asaasay wasaaradda horumarinta arrimaha qoyska haweenkii arrimaha qoyska waxa haweenka Puntland ay siyaasadda ku lahaayeen 5 haweena oo ku jira golaha xeerdejinta 3 xubnood oo ku jira golaha xukuumadda hal agaasimo guud iyo 2 xubnood oo ka tirsan hay'adaha madaxa bannaan komishinada iyo doorashooyinkaba iyo agaasimo waaxeedyo door ah mudana madaxweyne maanta oo Puntland ay 20 jirsatay kana kooban tahay 9 gobol golaha baarlamaanka oo ka kooban 66 xubnood waxa haweenka uga jira hal gabar golaha xukuumadda oo ka kooban 48 wasiir waxa haweenka ku jira 4 xubnood oo badankoodu aan ka mid ahayn wasaaradaha baahiyaha haweenka ay aadka u taabato taas oo caqabad ku ah inay baahidooda wax ka taraan in ka badan haweenka Puntland oo lagu qiyaaso 50% in ka badan waxaana haweenka ka soo qayb galay shirweynahaas ay qodobkaas madaxweyne isaga raaceen qodobada soo socda koow inta laga gaarayo doorasho qof iyo codkiis ah waxa haweenka Puntland ka dalbanayaan xukuumadda iyo baarlamaanka in ay ka helaan xubno matala baarlamaanka Puntland oo ah xubno sharafeed kuwaas oo ay aanu niri ugu yaraan hal xubin gobolkiiba waa inay ka helaan xubno sharafeedkaas 9 gobol ee Puntland si ay u daboolaan baahiyaha kala duwan ee haweenka ilaa ay heer tuulo qodobka labaad golaha xukuumadda oo ka kooban 48 xubnood in ay ka helaan sidii caadada noo ahayd 30% ugu yaraan oo isugu jira wasiir dawlayaal wasiir ku-xigeenno iyo agaasimayaal guud ayagoo tixgelinta koowaad laga siinayo wasaaradaha ay aadka ugu badan tahay baahiyaha haweenka sida wasaaradda amniga wasaaradda qorshaynta wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda waxbarashada wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda qorshaynta intaasuna mudnaan gaar ah noo leeyahay madaxweyne iyo cadaaladda qodobka saddexaad dhismaha golayaasha deegaanka oo ay ka helaan iyagana ugu yaraan 30% xubnaha deegaan walba uu ka kooban yahay qodobka afraad guddiga doorashooyinka iyo komishinada kale ee madaxa bannaan in tirada guud ee xubnaha aanay sidoo kale ka yaraan 30% sidoo kale 3 xubnood oo ugu horeysa xisbiyada samaysmi doona 3 xubnood oo ugu horeysa ugu yaraan mid waa inay noqotaa gabar mudana madaxweyne in wasaaradda haweenka iyo qoyska ay samayso guddi u qareema genderka oo la yiraahdo Gender Advocacy Committee oo xoojiyo arrimaha haweenka iyo dhalinyarada iyo caruurta iyo dadka nugul qodobka siyaasadda intaas ayaan mudana madaxweyne ku soo koobnay qodobka labaad waxaan uga hadalnay dhaqaalaha arrimaha dhaqaalaha haweenka oo ah kuwa ay saaran tahay culayska ugu badan gacanta ku haya daryeelka qoyska waxa soo food saara culaysyo uga yimaada dhaqaale xumo sida awgeed waxa shirweynuhu isaga raacay qodobada soo socda qodobka koowaad in xukuumaddu u qareemid iyo awoodsiin uga samayso dhammaan hay'adaha kala duwan
ee dawliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee ay baahidoodu khusayso sida xirfadleyda kala duwan beeralayda kalluumaysatada farshaxanleyda ganacsatada yaryar iyo kuwa roonroon hal abuurleyda suugaanleyda qalinleyda iyo warbaahinta lana siiyo tababaro kor loogu qaadayo xirfadooda iyo tayadooda aqooneed waa qodobka koowaad ee dhaqaalaha qodobka labaad in ganacsatada yaryar danleyda qoysaska madaxda ka ah agoomaha garaad dhimanka iyo kuwa aan isdaryeeli karin in loo abuuro dhaqaale ay noloshooda ku maareeyaan qodobka saddexaad in deymo ay kor ugu qaadayaan ganacsigooda loo sameeyo oo loo abuuro haweenka haysta ganacsiga dhexe ee degdega uga burbura mararka inflationku yimaado oo kale qodobka ugu dambeeya oo aanu ganacsiga ka soo jeedinay mudane madaxweyne waxa weeyaan in haweenka aqoonta ganacsi leh laga qaybgeliyo maalgelinta tartamada iyo qandaraasyada waaweyn ee Puntland xafiiska laga maamulana ay xubno ku yeeshaan ayadoo hadda aan hal gabarna joogin qodobka saddexaad mudane madaxweyne waxaan uga hadalnay arrimaha bulshada sida waxbarashada caafimaadka oo ay haweenku baahi badan u qabaan waxaa shirweynuhu isaga raacay qodobadan soo socda qodobka koowaad in adeegyada caafimaad ee hadda jira la kobciyo shaqaalaha jira la tayeeyo kuwa maqan oo ay ka mid yihiin isbitaalka hooyada iyo dhallaanka iyo waxbarashada waa referral and teaching hospital laga sameeyo dhammaan caasimadaha magaalooyinka Puntland isla markaana adeegyada kale ee caafimaadka ee maqan la gaarsiiyo dhammaan degmooyinka tuulooyinka deegaanada iyo ilaa heer miyi mudane madaxweyne qodobka labaad waxa weeye in heerarka kala duwan ee waxbarashada gabdhaha iyo ka qaybgalkooda la sii xoojiyo wasiirka waxbarashaduna waa fadhiyaa si gaar ahna culays loo saaro dugsiyada hoose dhexe iyadoo la kordhinayo tirada gabdhaha macallimiinta wasiir waxa weeye haddii aan geedka salka laga soo asaasinin hadhowta kuma xisaabtami karno gabadhu markay dugsi sare joogto marka waxaan rabnaa dugsiyada hoose dhexe in la tayeeyo iyo macallimiin gabdhahana loo sameeyo qodobka saddexaad in wasaaradda haweenka lagu soo celiyo waaxda waxbarashada dadban waa dumaysikadii iyo waxbarashada haweenka dadka waaweyn oo hadda hoos timaada wasaaradda waxbarashada taas oo ay hoos imaan jireen dugsiyada dhaqaalaha guriga oo haweenka waaweyn uga faa'iidaysan jireen xirfadaha kala duwan waxbaridda haweenka aan hore wuxu baran nafaqaynta qoyska iyo xanaanada caruurta wasaaradda waxbarashada waa ku sharfanayd waagii wasaaraddaas lagu daray ma jirin wasaaradda haweenka waxaa Puntland la aasaasay 2005 sidaas darteed hawlo badan oo aan la koobi karin baa naga dayacan hana la ku soo wareejiyo mudane madaxweyne in la xoojiyo fursadaha waxbarashada tababarada iyo shaqooyinka gabdhaha dhalinta yar ee dhammaysta jaamacadaha ayagoo lagu jihaynayo deegaanada fogfog ee dhammaan gobollada iyo degmooyinka Puntland ayadoo la siinayo mushahar adeeg ka badan kan ay lagu qaato magaalooyinka waaweyn si dhiirigelin ay ugu noqoto kuwa kale walibana loogu daro gaadiid ay ku shaqeeyaan mudane madaxweyne waa la socotaa waa Puntland oo tan dhibaato haysata sanad walba waxaa soo baxda intaas oo kun oo arday oo jaamacadaha ka soo baxda kulli waxay rabaan in xafiisyo caasimadaha fariistaan deegaanada iyadii fogfogaa iyo tuulooyinkii iyo gobolladii iyo degmooyinkii oo dhanna waa dayacan yihiin marka gabdhahaas iyo wiilashaas oo annagu aan gabdhaha xoogga saarayno waxaan rabnaa in la garbeeyo oo la tababaro oo gaadiid la siiyo oo lacag tiradii ka badatay la siiyo oo deegaanada la geeyo mudane madaxweyne qodobka ugu dambeeya arrimaha bulshada waxa weeye in haweenka laga qayb geliyo dhammaan xarumaha adeegyada guud bixiya sida booliiska maxkamadaha cadaaladda iyo waxa la mid ah sidii haweenka iyo qoysku ay u helaan adeeg ku filan oo aan lagu dulmin mudane madaxweyne taasna waxa weeye waa ku jirnaa xabad waa ku jirtaa laakiin waxaan rabnaa affirmative action waxaan rabnaa meel walba inaan ka muuqano
qodobka afraad waxa weeye tacadiyada iyo dadka baahiyaha gaarka qaba haweenka Puntland noloshii qoyska oo ay la daalaadhacayeen ka sokow waxaa walwal iyo dareen culus ay ka muujiyeen kow tacadiyada uu kufsigu ka mid yahay oo ku soo badanaya dhammaan deegaanada Puntland oo lagula kaco haweenka ayagoo aan loo aaba yeelin mid yar mid dhexe hooyo waayeel toona oo qaarkoodna la dilo qodobka labaad in sharciga la saramariyo gabdhaha qareennada ah la tayeeyo laamaha dawladda oo dhanna la gaarsiiyo tiradoodana la kordhiyo qodobka saddexaad in la dhaqangeliyo shuruucda golayaasha dawladda ansixiyaan oo ay ka mid tahay sharciga kufsiga waa samaysan yahay wuxuu u baahan yahay oo kaliya in la dhaqangeliyo sidoo kaleeto waxaanu rabnaa in la ansixiyo shuruudaha ka maqanna loo dhammaystiro shuruucda kale oo qabyada ah oo xukuumaduhu ansixiyeen laakiin baarlamaanka ay u dhiman tahay oo ah sharcigii gudniinka iyo sharcigii siyaasadda haweenka ugu dambayn qodobkaas midna madaxweyne si loo wadaago dhaqaalaha iyo fursadaha lagu keeno magaca federaalka oo aanu qaybta ka nahay in dawladdu ay dhammaystirto khilaafka kala dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya kulana xisaabtamto dhammaan qoondooyinka ay Puntland ku leedahay dawladda federaalka oo qayb kasta nooga maqan qodobka ugu dambeeya oo shanaad waxa waaye dhaqangelinta dalabyada shirweynaha wada tashiga haweenka intaasaan soo sheegnay oo dhan dhaqangelin bay u baahan yihiin iyo dabagal waxaanu ka soo qaadanay 3 qodob qodobka koowaad wasaaradda haweenka iyo horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska kaliya ayaa u igman dhammaan dabagalka fulinta qaybaha uga aadan iyo meelmarinta dhammaan qodobada ay haweenka Puntland ka soo saareen shirweynahan guud annagoo toosh ku wada hayna haddana wasiiradda iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasaaradda noogu igman in arrintaas noo dabagalaan